الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال halkani warbaahinta halbeega wararka waxaa ku soo dhawaataan warka warbaahinta qodobada aan idin haynana waxaa kamid noqonaya madaxweynaha maamulka Jubbaland oo markiisii ugu horeysay ka hadlay khilaafka kala dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu soo hadal qaaday xariga wasiirka amniga Jubbaland Janan khudbadu jeediyay saaxiibadiin soo gudbin doona dagaal ka dhana villa Soomaaliya ayuu Axmed Madoobe ku baaqaya booliska Soomaaliya oo sheegay inay gacanta ku dhigeen shabakad isku xiran oo ka ganacsan jirtay carruurta Soomaaliyeed shabakadaas tiradooda waa imisa xagee ayaa lagu hayaa imisa carruur ayaa lagu tabayaa waan idin la wadaagin doonaa iyadoo shirka dib u heshiisinta beelaha Galmudug oo magaalada Dhuusamareeb si Samiir uga soconayo ayaa deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada Mudug iyo Galgaduud waxaa ka soo cusboonanaya dagaal beeleedyo Faransiis ka gubtay khasaare ayaa jira dagaal dhacay ayaan saaxiibayaal idin soo gudbin doonaa faahfaahinadii ugu dambeeyay Xasan Cali Kheyre waxa uu magaalada Baydhabo kulan kula qaatay iyada caalami ah oo ka socda dunida muxuu ka dalbaday muxuu kala hadlay waan idin soo gudbinayaa xilli khayralkaasi oo arrimo xasaasi ah u joogo sargaal sare oo ka tirsan xarakada al-shabaab waxa uu soo dibay dowladda federaalka Soomaaliya qodobada ayaa daawad doontaan taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 12 bisha sagaalaad 2019 saaxiibayaal waxaad u diyaar garowdaan daawashada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan channelkan halbeega wararka saaxiibayaal subscribe calaamada kambalka furda si ay idin soo gaaraan warar iyo warbixino xasaasi ah oo aan halkan idinkugu soo gudbino aynu ku bilownay madaxweynaha maamulka dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe waxa uu si kulul u weeraray dowladda federaalka Soomaaliya waxaana markii ugu horeysay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa saxaafadda kula hadlay markii ugu horeysay kadib doorashadiisii 22 Agoosto 2019 lagu qabtay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose madaxweynaha maamulka Jubbaland waxa uu ka hadlay doorashadiisii baarlamaan iyo tan madaxweynaha ee ka dhacday Jubbaland khilaafka dowladda federaalka Soomaaliya iyo Jubbaland dhaxyaala xariga wasiirka amniga dowlad goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan waxa kale uu madaxweynuhu ka hadlay ammaanka guud ee dalka Soomaaliya iyo doorashada 2021 lagu wado inay gudaha dalka Soomaaliya ka qabsanto madaxweynaha ayaa waxa uu mahad celiyay dadweynaha reer Jubbaland sida ay uga qayb qaateen waqtigii adkaa ee doorashada baarlamaanka iyo madaxweynaha ee soo socday bilihii la soo dhaafay saraakiisha ammaanka ayuu si gaar ah ugu mahad celiyay waxaana ku amaanay shaqada wacan oo ay qabteen sida uu sheegay madaxweynaha maamulka dowlad goboleedka Jubbaland waxa madaxda dowladda federaalka Soomaaliya uu ku eedeeyay inay burburinayaan nidaam dowlad goboleedka sida amniga dhismaha ciidamada sidoo kale waxa uu sheegay inay duulaan qaawan villa Soomaaliya ku tahay jiritaanka iyo midnimada dowlad goboleedka Jubbaland ugu dambeyntii madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa waxa uu sheegay in jawaabta midaan xigta ay noqon doonto mid ka badan hadal waxa uu sheegay inay ficil sameyn doonaan haddii dowladda federaalka Soomaaliya aysan wax ka bedelin qaabka haatan ay wax ku maamulayso hadalkani ka soo Jubbaland ka bacdi inaan ka ilaahdo hadal xaaladda guud ee waddanka uu marayo gaar ahaan Jubbaland guud ahaan Soomaaliya waxay soo martay marxalado kala duwan oo xilligii gobonimo doonka xilligii xorriyadda ay qaadatay halganka xilligii kacaanka waqtigii burburka ee dagaalka sokeeye iyo xilligii aduudka iyo dib u heshiinta iyo soo celinta qarannimadii Soomaaliya dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya ka dhacay laga bilaabo aakhirkii 90 ilaa 91 wuxuu soo socday muddo dheer oo qaadatay waqti oo Soomaalidu dagaalkaas sokeeye uu gaadhay seedi iyo sodon iyo adeer iyo eede iyo habaryar midna inaan la badbaadin waxaa bilowday oo intaa istaagin dad Soomaaliyeed oo damiirku ku jiro oo raadinayay mar walba Soomaaliya xaaladda ku jirtay in dib u heshiisiin laga galo la isu keeno Soomaaliya la soo celiyo lagu soo celiyo saaxada ay loobaan dhibaatadii dhacaysa la joojiyo taasi waxay keentay markaa shirarkii ugu horeeyay Jabuuti iyo markii laga soo bilaabo in la isu geeyo Soomaali oo la war Soomaaliyay goolintii loo dhigay xageen joognaa maxaan haynaa maxaa inoo dana ay keentay markaa in la soo aaduudo
bal Soomaali haykal dowladnimo oo ay ku heshiin karto in la isugu yimaado shirkaasi wuxuu dhalay in raad uu ka soo baxo waad garan kartaa marka xilligii shirkii carta uu dhacay dowladdii TFG ee xilligaa la soo magacaabay shacabka Soomaaliyeed rabitaanka dowladnimo sidoo ku ahaa iyo ilaa meesha u soo baxeen iyo si u soo dhaweynayeen macaalasaf waxay ahayd tallaabo hore loo qaaday laakiin mayna noqonin sidii rabitaanka shacabku u ahaa inay u gaadho waxaa ka dambeeyay shirar badan oo ka dambeeyo kii Imbagati oo lagu soo dhisay haddana dowladdii TNG-da markaa ka bacdi waxaa la yimid in la dhiso 2012kii dowladdii rasmiga ahayd ee federaalka ee Soomaaliya oo shirkeedu uu ka dhacay doorashada Muqdisho oo lagu dhisay dowlad rasmi ah waxaa ka horreeyay kii Djibouti ee la isku daray muqaawamadii iyo dowladdii TFG ee xilligaa TNG ee jirtay xilligaas dowladdaas la dhisay 2012kii ee rasmiga ahayd waxay qabatay shaqo badan oo ay ka mid ahayd inay dhammaystirto federaalkii Soomaaliya nidaamkii federalismka ahaa oo markaa ay keentay in isteediyadii la dhiso oo nidaamkii haykalkii federal systemka ahaa gacmaha lugaha loo taago taasina ay u noqoto sabab in dagaalkii shabaabkuna guulo badan laga gaadho dhulkuna isu socod uu gaadho ay gaadhay arrinta amnigu xataa markii ay dhacaysay doorashadii 2016 ee federaalka la isu diyaarinayay ninka musharaxa ama mas'uulka ah ee jawhar kursigiisu yaalla ee shaqadu raadsanayay inuu intuu ka lugeeyo gaarigiisa qaato daraaf gareeyo inuu ilaa iyo Muqdisho iyo jawhar inta u dhaxaysa oo dhulka marayo oo soconayay waxay gaadhay in laga fogeeyo shabaab deegaanadii ay hayeen magaalada Muqdishona si dhammaystiran ay isugu furanto dowladdaas waxaan oran karaa waqtigeedu dhammaaday iyada oo ay taagan tahay systemkii federaalka ahaa dowladnimadii aan ku meel gaar ahayn beeshii caalamku ay soo wada jeesato ay noqoto doorashadii ku xigtay 2017kii inay ka dhacdo Muqdisho si nabada iyadoo ay tahay maxaa ka dambeeyay waxa ka dambeeyay ee dhacay waxay noqotay dowladdii xilligaas lagu rajada weynaa 2017 wadanku xagee buu aaday xagee buu u socdaa muxuu gaadhay muxuu noqday su'aal waxa way meesha in la isweydiiyo u baahan waxaa lumay oo la waayay dhammaan amnigii oo burburay oo ninkii u kala lugayn jiray Muqdisho iyo Jawhar gaariga u kala qaadan jiray siyaasiga ah ay ku adkaatay Muqdisho dhexdeeda inuu wax ka qabto ay noqoto in madaxtooyada duqeynta ay ku socoto ay noqoto qaraxyadii ugu badan inay Muqdisho ka dhacaan ay noqoto in la waayo dowladnimadii iyo amnigii iyo kala dambeyntii in caasimadda laftirkeeda dhibaatada ay qalkaas ka gaadho waxay noqotay in uu burburo haykalkii dhismo ciidan ee wadanku iska lahaa oo garanaysaan maanta meesha uu taagan yahay waxay noqotay in la waayo systemkii federaalka ee dowladdii 2012kii la doortay ay soo dhammaystirtay in maanta kulligii dib loogu noqonayo burbur iyo raad aan jirin ay dib ugu noqoto wadankii uu kulligii dib u noqonayo ay noqotay in raadkii dib loo qaado waxay noqotay cunaqabatayn dhaqaale oo wadankii oo dhan lagu soo rogo laga bilaabo Somaliland iyo ilaa inta kale oo mid walba sidaan rabnaa sidaan ma tahay haday noqon weydo maxaa anaga dan noo ah inay noqoto wadanka in kulli dib loogu celiyo waxaan oran karaa waxay noqotay mid lagu hungoobay oo wuxuu dadku ay tiirsanayeen iyo amaashoodii lumisay oo ay noqotay wixii laga raadinayay waxaan ahayn inay meesha ka soo baxeen waxaa timid Jubbaland iyo dhismaheedii Jubbaland waa deegaan Soomaaliya ka tirsan oo ka kooban 3 gobol oo ah gobolada Jubbada Dhexe iyo Jubbada Hoose iyo gobolka Gedo markaan ka soo qaadnay deegaanka maanta aan joogno wuxuu ahaa meelaha Soomaalida qof waliba uu ka fakarayay ee uu isweydiinayay dagaalka sokeeyana inuu ugu dambeyn doono dhibaatada Soomaaliya inay noqonayso meesha xalkeeda in la gaaro ay ugu adkaanayso sababtuna waxay ahayd wada noolaanshaha dadku mujtamacu ku wada nool yihiin iyo damaca
dadka ku dhex jira ee qolo walba iyada uu damaceedu yahay lahaanshaha ay sheeganayso iyo sida ay iyadu u rabto inay wax ugu noqdaan taasoo shabaabkuna ay tahay meesha uu ugu badan yahay sababtoo isagoo mar walba qadarinaya wada noolaanshaha bulshadaasi inay tahay waxa keeni karaya in dadka la isku diro lagu dhex noolaado beelaha la kala dhex galo la iska hor keeno iyo juqraafikali nooca deegaanku u dhisan yahay u ogolaanaya inay ama ku dhuuman karaan ama ku noolaan karaan ama ay siyaalo badanoo noloshooda kalifaysa ay ugu jiri karaan caqabadda markaa qof waliba uu sugayay waxay ahayd inay arrintaasi xalkeedu uu adkaanayo oo noqonayo gobolka ugu dambeeya laakiin ilaahay baa iskale mahadda subxaana wa tacaala dadka reer jubbaland way tashadeen ciidamaha loo tababaray way isku soo tashadeen dagaallay qaadeen inta badan deegaanada marka laga reebo jubbada dhexe gobolka gede iyo jubbada hoose intiisa badanba waxay noqotay in lagu xoreeyo dagaal ay dadku isku tashadeen iyadoo ay jiraan dowlado iyo dad caawinaya haddana dagaalkaasi uu noqday inuu sidaa ku dhaco kismaayo oo ahayd mixwarka dagaalka ama gundhiga u ahayd meesha dagaalku had iyo jeer ka socda siraaca la isku haysanayay waxay noqotay dadkii reer jubbaland markii ay yimaadeen ciidamadu ee la soo galay waxa ay ka shaqeeyeen ugu muhiimsanaa wuxuu noqday in dib u heshiisiin la sameeyo system dowladnimo oo loo dhow yahay oo maanta jareer iyo jileec iyo baajuun iyo carab iyo qof kastoo Soomaaliya oo xuquuqdiisa ku leeyahay qof waliba xuquuqdiisa iyo matalaadiisa uu ku yeelanayo oo qof walba maanta meel oo ku qancayo ku soo hagaagaya ay noqoto la isku dayo inaan isku dhabar jabino in la dhismo Jubbaland oo dadku ay leeyihiin kaasoo macnihiisu yahay inuu fudaydiyo ama uu sahlo wada noolaanshaha dadka iyo isku dhaxjirka iyo jacaylka iyo kalgacaylka dhexdooda ka jira taasi waxay guul u noqotay Soomaalida oo dhan oo u aragtay mar haddii deegaankanba lagu heshiiyey oo nabadani ay ka jirto oo isdhexgalkani uu ka jiro oo qof waliba maanta uu matalaadiisa helayo alla ilaahay Soomaaliya dowladnimadeedu way si aanbaqaadi kartaa taasaa waxay keentay markaa dhismihii Jubbaland inaan dhisno oo marxaladii koowaad iyo marxaladii labaad oo hadda la gelayo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa waxa uu ku soo aadaya xilli uu sii kordhayo khilaafka xooggan ee ka dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka dowlad goboleedka Jubbaland ciidamada booliska Soomaaliya ayaa waxay gacanta ku dhigeen shabakad ka ganacsan jirtay caruurta da'da yar waxaana la sheegayaa in caruur badan lagu leeyahay gudaha magaalada Muqdisho taliska ciidanka booliska Soomaaliya ayaa waxay shaaciyeen in ciidamada boolisku ay soo qabteen shabakad ku howlaneed ka ganacsiga caruurta taasi oo muddo badan lagu raad joogay oo ciidamada ammaanku xogtooda ay hayeen taliska ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Zakiya Xuseen Axmed ayaa waxay sheegtay inay soo qabteen shabakadaasi oo ku guuleysteen ciidamada booliska gaar ahaan hoggaanka dambi baarista CID isla markaana la soo qabtay 11 eedeysane oo 8 kamid ah ay haween yihiin ciidamada booliska gaar ahaan hoggaanka dambi baarista CID ciidamada booliska gaar ahaan hoggaanka dambi baarista CID ayaa waxay soo qabteen shabakad ka ganacsan jirtay caruurta taasi oo muddo hal bilahi lagu raad joogay ayay tiri taliska ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed General Zakiya Xuseen waxay hadalkeeda si raacisay inay 8 kamid ah dadkaasi ay haween yihiin taliska Zakiya sidoo kale waxa ay hadalkeeda ku sii dartay in ciidamadu ay badbaadiyeen 11 caruur ah oo ay shabakadu doonaysay inay iibsadaan hase yeeshee ciidanka booliska Soomaaliyeed ay la wareegeen caruurtaasi waalidiintoodana ay dib ugu wareejiyeen taliska ku-xigeenka ciidanka booliska ma aysan sheegin magacyada dadkan la soo qabtay xilliga la soo qabtay oo howlgalkaas u dhacay iyo goobta laga soo qabtay faahfaahin arrintaasi dheer ma aysan ka bixinin taliska ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliya General Zakiya Xuseen ku-xigeenka labaad ee ciidanka booliska Soomaaliyeed sargaal sare oo ka tirsan xarakada al-shabaab ayaa waxa uu isku soo dhibay dowladda federaalka Soomaaliya waxaana la soo gaarsiiyay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaana maalmihii la soo dhaafay si kordhayay dagaalyahanada hubeysan ee xarakada shabaab ka tirsan soo dhibaya dowladda federaalka Soomaaliya saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan deegaan ka tirsan gobolka Bakool ayaa waxay sheegeen inay maanta isku soo dhibeen saraakiil ka tirsan ururka al-shabaab sargaalkan ayaa magaciisa waxaa lagu sheegay Yarow Xasan Aadan balse al-shabaab
ay u aqoon jireen Sayfullah waxaana la sheegayaa inuu soo dhibay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay ku sugan degmada Xudur ee gobolka Bakool. sidoo kale sargaalkan ayaa waxaa la sheegay inuu sakawaadka waxaana la sheegayaa inuu muhiim u ahaa sargaalkani ka tirsan xarakada al-shabaab ee maanta dowladda federaalka Soomaaliya gacanteeda soo galay. si kastaba ahaatee dhowr jeer ayaa saraakiil ka tirsan xarakada al-shabaab waxay soo dhiibeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay kor hore ballan qaaday inay xafis u fidin doonto shakhsi walba ee ka soo goosta safka al-shabaab kuna soo biira dowladda federaalka Soomaaliya. guud ahaan warka ka daawanayseen warbaahinta halbeega wararka saaxiibayaal waa naga intaay isma dhaafno. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.